السلام الله عليكم أصحابتي ذا sheekeen inaan ka baaqday reer Kenya waan jeclahay asxaabteeda Kenya Soomaali hore waxay u tiri jinni ninkii keenaa hee bixiyo ima walgu soo dhaweynaa waa dareensanahay inaad warbixin iga sugaysaan warbixintaasna maanta idin la wadaagi doonaa arintii showga Sharma Boy iyo Kenya ma baaqatay maxaa isbedelay xaalado fara badan oo update aan ka dabageyn doona hadii aan ugu cusubtahay subscribe-taada waa dhiirigelin like-taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagu waysaa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan muxuu nabaa ka caashiqu igeystina fahmiyahu wanudubka hooyo naxariista biyo ifgalgaxal dadkaygiyo joogiga hala nooge sida wada jeedaan barnaamijka tijaabi codkaaga wuxuu ka soo bixi doonaa heestan iyo waliba userkan waxa waaye halkaas isha lagu hayaa hadeer oo barnaamijkan ka diyaarin doona hadii codkaagu isku hubtido codkaagu halaas yahay userkana tagaysaa waa ka soo sameynaysaa isla heestan shay marada Allah yarham hadii aad codkaagu usun fadhin oo san gacantaada fadhina halkaan isku tagna hadii kale karbaasha meeshan u imaanaysa marka insha Allah heestan iyo waliba userkan inaan ka soo sameyn doono barnaamijka tijaabi codkaaga u badan tahay waayahay waxa hawada soo galay codad uu fanaanka Sharma Boy shalay galab screen recording laga duubay uu leeyahay magaalada Nairobi ma tagaayo magaalada Nairobi saan waaye showga waa baaqday dabcan saraakiishu ilaa iyo dhankaas xataa WhatsApp-ka waa igu yimid muuqaalka sidoo leeyahay wasiir adigana showga waa dhacayaa baan tiri ninkiina saas uu leeyahay maxaa isbedelay warbixin naga soo sii marka warbixin baad ka soo siin doonaa in ka siinaya hadeer laakiin inta aan dhageysan bal codadkaas horta hal mar aan wada dhageysano ilma igu turtay ha Nairobi ma imaanaysa Nairobi ha Nairobi maankar waa ka baqooya way ilaa uu timaaka baqa ima walgu soo dhaweynaa maxaa sabab cid ku dili karta malaha meeshan Soomaaliya oo yariis waaye kama wajaayjua Soomaaliya yariis waaye isliidan cid wax ku yeeli karta malaha leeyin sheekeen inaan ka baaqday reer Kenya waan jeclahay asxaabteeda Kenya joogto meel walba ay Kenya ka joogaan aad baa u jeclahay maadaama sharna amaanayni waa baaqday maadaama sharna amaanayni barnaamijka asiga ahaa wuu baaqdaa ku dhahay haddii aan show hadda qabanayo ee dhacdo inaan show qabto sanadka cusubna haddii ay dhacdo inaan show qabto sanadka cusub magaalo aan Hargeysa ahayn kuma qabanayo brother haddii kale waa iska deena show dhan waayahay sida codkaas ku dhageysateen wuxuu fanaanku sheegay in magaalada Nairobi show uu ka baaqday xaalado fara badan inay jiraan oo ku saabsan isaga iyo waliba security-giisa of course horta way jirtaa xaaladaas waa sax hadaa xasuustaan muuqaalkii ka horeeyay aan idin soo duubay waxaan idin sheegay in caqabado munaasabada ama showga banaankiisa taagan ay jiraan aniga waliba si nabadoonnimo oo dhalinyarnimo ugu baaqay in caqabadahaas la xalliyo ama caqabadahaas la joojiyo dabcan caqabadihii aan shalay idin la wadaagayay ayaa meeshii jiray oo markaas xoogeystay oo sidii shalay ahaayeen ka balaartay oo ka weynaaday jiraan in madashaas ay ku imaato xogaha khalkhalgelin waa isku ogtiin aroos markuu dhacayo ama madal markay dhacayso xogaha dhagax tuura yareyn iyo wax waa iska yimaadaan taasina waxaan ka leeyahay war Sharma Boy waa wiilkiini ilkaasina waa wiilkiini muuqaaladan markii aan shalay arkay waxaan la xiriiray Sharma Boy sidoo kale waxaan la xiriiray Kenya iyo waliba dhalinyaradii teamka Zoo ugu dambeyn waxa ii soo baxday markii la isku celceliyay xaaladaas in horta showga waqtigiisa aan hadeer la iclaamin karin showgaas inuu dhacayana ay 50-50 ay noqotay xaaladu halkii markii hore 80% ay ahayd hadeer xaaladu waa 50-50 inuu dhacona waa macquul inuusan dhicina macquul sababtoo ah arrinka waxa soo galay oo barnaamijka hadda gacanta ku dhigay oo arrinkaas la wareegay niman odayaal ah oo labada dhinac ka socda
nimankaas odayaasha aba arrinkaas waa hadli doona waxaana arrinkaas keenay in showgaas fanaankaas loo qabanayo ka sokow oo xitaa ay jiraan fanaaniin kale oo showgaas qaban doono marka inta Nairobi ay ceeb ka dhici lahayd oo fanaaniin fara badan oo meesha isugu yimid showgaas xogaha caqabad ay ku imaan lahayd ama isoo meel dhaxmaray u joogsan lahaa ama showga markii saacada ka dhiman la baajin lahaa waxyaalo fara badan intay dhici lahaayeen waxaa markii hore la go'aansaday inaan showgaas la dhigin ayadoo uusan dhulka nabad uusan ahayn dabcan Sharma Boy kaliya haduu yahay hadii showga saacada soo ka dhiman tahay laga xalibo ama showgu socdo uu xaga caqabad soo gasho la kala yaaco waa macquul waa Sharma Boy kaliya uu sabri karaa laakiin markii fanaaniin fara badan oo caadi ah oo Nairobi wax caqabad aysan ka haysan ay meesha joogaan oo showgana dhibaato ku timaado way ka sii foolxumo badan tahay oo fanaaniintaas faraha badan ee legendska ay meesha isugu tagay ee showgooda la baajiyay foolxumo weyn bay dhalanaysaa marka labada dhinacba waxa go'aan lagu gaaray in showgaas horta waqtigiisa dib looga dhigo hadii inta ka horeyso la isku afgartana showgaas waqtigiisa lagu qabto anaga dabcan waa naga soo wareegtay hadeer warbixintii hore idin la wadaago wuxuu showgaas inuu Nairobi sanadka cusub ka dhacayo haatan waxa idin la wadaagayaa showgaas in gacan ku hayntiisa ay niman odayaal ah oo reer Kenya ah ay la wareegeen showgaas is afgarashadiisa kulankaas wada hadalkaas wixii ka soo baxo wixii la isku afgarto sidii la isku marxabaysto wixii intaas ka dambeeya bay odayaashaas shaacin doona ayaga dhihi doona showga taariikhdaas laga dhigo showga waa la qaban karaa showga lama qaban karo Nairobi showga ka dhacaya kama dhacayo waxa soo dhan barnaamijkaas markii uu soo gabagabowdo ayuu mataqaana lagu qaban doonaa marka dabcan hadeer wixii ka dambeeyo aniga idinkuba shacab baan ka nahay oo suugaynaa wixii bal Nairobi ka soo cusboonaado iyo kulankaas iyo nabad doonayntaas wixii ka soo cusboonaado haday socotana khayr haday socon weydana dabcan waxaan filayaa in magaalooyin kale ama meelo kale sidoo hadda ka dhawaajiyay Hargeysa inuu asagana tagi doono oo show ku qaban doono ayadana wixii ka soo kordha hadii showga Hargeysa dhankiisa u bato wada la soo socodsiin doona dabcan Hargeysa iyo Somaliland wax badan baa laga sugayay in kala yiraahdo Sharmaake STC halo mudane Muuse Biixi sidoo u qaaday weli kuma uusan qaban Hargeysa waxa way tiyaatarkeeda kaga dhax qaadin oo shacabkuna lama aysan qaadin iyadana waa taariikh la sugayay kulli reer Somaliland marka haday noqoto meesha la yiraahdo magaalada Hargeysa inuu showgaas ka dhaco iyo haday noqoto magaalada Nairobi iyo waqtigii noqotay xilligii noqotaba oo sugeynaa ugu dambeyn taliye tusaale waxaan u jeedinayaa shacab weynaha reer Nairobi madaxda reer Nairobi ee dhalinyarada ku nool waninka dhalinyarada waa nin fanaana dabcan hees uu qaado hadeer ciil uma qabo show uu qabto ciil uma qabo waxa kaliya hada ciil u qaba ama u baahan yahay waa dhalinyaradiisii iyo taageerayaashiisii meeshaas joogay inuu waqti la qaato kam shufra maraakib maad Allah huur cadaawadu inta in leeg bi soconaysa foolxumadu inta in leeg bi soconaysa ninka dhalinyarada inta in leeg daba joogaya waxaan hadeer meeshan ka dhacaya waa wax qurmay oo iska taariikhun biri ka maalin waxa laga yaabaa dadka hadeer waxa qalaadeynaya biri ka maalin inay ka shalaayaan oo foolxumadii maanta sameeyaan ay biri ceeb ku noqoto oo magaalada ay ka mari waayaan marka waxaan taliye tusaale ku jeedinayaa waninka dhalinyarada ah showgiisana loo soo dhaweeyo odayaashaas insha Allah waxaan rajeynayaa inuu war khayr qabo ka soo yeero showgaasna wiilkaas dhalinyarada ah loo ogolaado meeshaasna ha kala kacsado si qurux badan loo sugotiyo taladan markii hore jeediyay baan ilaa hadda jeedinayaa hadii aan wax cusub maqlo ama ay soo gaarto xogteeda la soo gudbiyo ee la soo wadaagi doonaa hadda laakiin se halkaas inoo joogaysa barnaamijkii marka aan idinkaga daba geenayay wixii isbedelay intaas aan ku soo gabagabeynaya hadii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigana fikirkaaga noo wada saarto ku midna barnaamij ka lamid ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya social media leh jow